بسم الله الحمد لله سلام الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. waxaan halkaan saakayto magaaladan aan taaganahay waxa weeye xangaras tawfiiq waxa u jirtaa 12 kiiloomitir. waxaan saakayto ku dhagax dhigaynaa masjidkii aan ka codsanay in la kaga dhiso meeshaan oo aan ka codsanay inuu nooga dhiso Sheekh Maxamed Jaamac Xasan Jaamac oo yiri masjidka la soo cabiro iyo intuu yahay meesha qabanaysa. waxaan u garanay haddii aan tashanay ilaa shalayto in aan ka dhiso tuuladan xangaras oo aan masjid lahayn oo caruurtu ay wax ku barato waliba dad culimo ay degan yihiin oo muddo badan kitaabada lagu raacdo oo caruurtu ay wax ku barato meegaag hoostiis geed hoostiis macnaha sidii loo yaqaano. waxaan isla garanay halkaan inaan ka dhisno masaajidka dhulkiisu uu badan yahay aan hadda u cabirnay sidaan wuxuu yahay 30 saana wuxuu yahay 40. masjidka aan rabnaa hadda inaan dhisno howlgalkiisa aan dhisnana waxa waayeen waa 12 ah. waxaan ku daraynaa oo kale haddii fursaduna siiso 2 qol oo mid malcamadii quraanka lagu aqoonayay tahay ama labadaba haddaan rabnaa u isticmaalayno midna tahay qolkii masjidka aan alaabta u dhigi lahayn oo loo seexan lahaa iyo barkad iyo suuli intaas baan hadda qalqaaladeedii aanu siniraha laga dhigo talada iyo fakarkana waa la wadaagaa. intii gacan ka geysanaysa oo masjidka baytullaahiga wax ku darsanaysa oo wax sadaqaysanaysa waxaan codsanaynaa inay ka soo qayb gasho oo waxooda ay hormarsadaan. Sheekh Maxamedna masjidka atri hal isoo jawaabo intuu yahay qaybeyntiisa. Sheekh Maxamed tuuladan ayaan u garanay Allah adigana ku fuudeeyo sidaas iyo waxa weeyaan sidaas aan warkii ugu gudbaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.